علمي واريادي هذا يوم ما سنتهي سيدا مقلة برنامج كان نقصه في الشيء waxaan ku weydiinayaa hadduu ilaahay yiraahdo laba su'aal oo muhiim u ah oo bulshada ku noqon magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Su'aasha koowaad waxaa waaye qofka ama dadka loo dacwoonayo ama xero qaxootiga ku jiraan ama banaanka ha joogaan gaar ahaan dadka qaxootiga oo xerada qaxootiga ku jiro ayaga maxaa loogu baahan yahay qofkan u dacwoonayo su'aal fiican dadkaas maxaa loogu baahan yahay ayaga naftirkooda dadkaasi waxaa looga baahan yahay oo keliya waxay tahay in ay dadkaasi register ay qaxootiga waddanka ay joogaan in uu ahaa qof qaxooti ahaan uga diiwaan gashan amaba hay-adda UNHCR qaxooti ahaan uga diiwaan gashan wixii ka horreeyey 30kii bishii sagaalaad ee sanadkii dhammaaday 2023 muhiim ma ahan inaad kaarkii gacanta ku haysato muhiimaddu waxay tahay inaad register ahayd oo qof qaxooti aad xilligaasi ka hor aad isku diiwaan gelisay iyo in aad haysato wax form of amaba waraaq ha ahaato ama ID ha ahaado caddaynaya registrationkaasi inaad tahay qof la diiwaan geliyey waxaad la wadaagaysaa marka wax kasta oo aad haysato oo qaxooti ahaan lagugu diiwaan geliyey dadkan ku xareynaya inta kaliya oo lagaga baahan yahay waa inta su'aalo yar oo waxaa jira marka applicationka dadka halkan jooga ay xareynayaan la weydiinayo oo ah qofkan muxuu uga soo cararay waddankii uu ka yimid goorma ayuu ka soo tegay maxaa dhibaato ah uu kala soo kulmay muxuu haddii uu ku laabto sababta maxaa uusan ugu laaban karin maxay tahay maxaase ku dhacaya haddii uu waddankii ku laabto marka su'aalahaasi waa in ay la wadaagaan dadka wax u xareynaya oo Mareykanka jooga waa inay noqdaan wixii ay hore u sheegteen markii qaxootiga loo diiwaan gelinayay wixii ay sheegteen iyo waxa dadkan ay qorayaan wax is yeelanaya waa inay noqdaan marka waxa kaliya oo looga baahan yahay dadka qaxootiyada jooga waa inta in ay register ahaayeen oo qof qaxootiya waddanka ay joogaan ama UNHCR in ay wax cadayna in ay qaxooti ahaayeen oo form ah waraaqa ahaato ama kaar ha ahaato inay soo diraan oo applicationka lagu xareeyo iyo in qofkaasi uu caddeeyo sababta uu uga soo cararay waddankiisa iyo sababta uusan ugu laaban karin waqtigii uu yimid waxyaabaha haddii uu la soo kulmay dhibaato ah dowladda waddanka uu ka yimid wax ma ka qaban waysay dhibaatooyinkaasi uu la kulmay waxyaabaha sidoo kale la weydiinayo mise la wadaagayba dowladda dhibaatada waxyaabahaasi oo idil ayaa ka mid ah waxyaabaha looga baahan yahay dadka qaxootiyada jooga oo doonaya in la kafaalo qaado okay aad ayaa umahadsan tahay su-aasha labaad oo ummadda isdhex weydiinaysa waxaa waaye maadaama in badan aad ka hadashay oo media aad uga hadashay haddana Soomaalideena waxaa waaye still waxay u baahan yihiin explain wax la dhaho maadaama Janice inoo siisay maanta inaad nagala soo qayb gasho barnaamijkan gaarka ah aan ugu talagalnay walaalaheena Soomaaliyeed oo halkan nala joogo inay update aad ka siiso waxyaalaha qaxootiyaasha loogu baahan yahay su-aasha labaad waxa waaye dad aan last name-keeda isku mid ahayn misalan oo kale Cali Faarax Jaamac Xuseen Sacdiyo Saciid ama Faadumo Cabdi oo laakiin hal address wada degan laakiin oo kala last name ah u dacwoon karaan group 5 kan yani qof oo xero qaxooti jooga ama banaanka kala jooga shuruudaha waxaa ka mid ah horta qofka shanta qof oo halkan jooga xitaa dad ajnabi aad ku darsan kartaa dadka kula shaqeeya dadka saaxiibada ah dadka dariskaada ah qofkii aan wax magaca kuma xirno haddii aad rabtaan ajnabi xitaa isku diin ha ahaanina marka muhiimaddu waxay tahay inaad 5 qof oo hal meel oo isku dhow degan aad heli karto dadka aad u dacwoonaysa xitaa qasab ma ahan inay wada dhasheen waa dad ilma adeer ah ayay noqon karaan ilma abti ah ilma eeda ah ma la fiirinayo adiga qofkan maxaa isku tihiin laguma weydiinayo just qofkan ma taqaana this is someone I know why muhiimaddu waxay tahay waxaad wajiga labaad wuxuu tahay you can sponsor someone you know marka xitaa saaxiibka qof uu dhalay qof aad saaxiib Soomaaliya ku ahaan jirteen qof uu dhalay ayay noqon kartaa marka dadka halkan joogana wax requirement oo dhinaca magaca kuma xirno dadka aad u dacwoonaysana wax requirement kuma xirno oo dhinaca magaca ama wada dhalashada okay dadka group 5 ku jiro hadaytana waa ka hadashay laakiin dadka Soomaaliyeed oo si iftiininayna maadaama media aan isticmaalayno
badanaa su'aalaha ayna weydiinayaan maadaama miidiyaha ka shaqeyna waxa waaye shanta qofood yaxayna wuu ku weydiiyey laakiin explain fara badan aan sameynaynaa insha allah raalina naga ahaw accountka la furaayo oo bangiga ah waxay noo sheegtay inuu bangi kale oo gooni ah uu yahay oo Wells Fargo American bangi whatever laakiin bangi gaar ah bangigaas shantooda qofood ma wada furayaan mise controller-ka bes furi kara bangiga ما horta Wells Fargo wuu noqon karaa Bank of America wuu noqon karaa aniga hadda qof baa ila soo xiriiray dhahayo waxaan ka soo furtay Wells Fargo laakiin sababta xogaa aan u iri waxay tahay bangiyada waaweyn oo magaca ku leh Mareykanka waxa laga yaabaa in arrintan ay kugu adkeeyaan oo yiraahdaan waa inaad ururka non-profit organization aad u soo diiwaan gelistaa state-ka waa inaad waraaq kala timaadaa city-ga waa inaad waraaq kala timaadaa laakiin xogaa bangiyo waxaa jira yaryar oo iyagu aan shuruudo badan inta badan kugu xiraynin laakiin muhiimaddu waxa ay tahay hadda Wells Fargo kala dad u furaa jirto oo ila soo xiriiray sida aan ku sheegay laakiin muhiimaddu waxay tahay bangiga inaad u sharaxi karto horta waxa aad doonayso qofku maxay bangiga hal qofna wuu furi karaa saddex qofna way isku soo qori karaan laakiin waxaaba wanaagsan qofka coordinator-ka inuu soo furo laakiin bangigaas waa inuu noqdaa account cusub oo hadda la furayo waa inuusan noqon account horey loo isticmaali jiray haddii xitaa account horey loo isticmaali jiray uu yahay waa inuu noqdaa account aan wax transaction badan aysan ka dhicin oo lacaga fara badan aysan marin oo horey aadan ugala bixin muhiimaddu waxay tahay bangigaas inuu yahay markaad magacaada ku soo furto sida aan ku sheegay qaybta nickname-ka ayaad groupka magaciisa ku qoraysaa waxaana qasab ah oo muhiim ah groupka inaad magac u bixisaa because intaasoo qof ayaa application diraysa groupkaada waxaa loo baahan yahay wax lagu aqoonsan karo magaca welcome corpsna waa inuusan raacsanaanin groupka magacaad u bixinayso welcome corps waa inuusan raacsanaanin magaca unique haddaa rabto magaaladii aad ka timid magaceeda u bixi because hadhowdii marka haddii wax kaa qaldamaan lagula soo xiriirayo waxa lagu leeyahay soo ma ahayn group hebel ma ahayn soo ma tahid qofkii applicationkaas soo group marka groupka magaciisu waa muhiim markasta waa inaad groupka magac ula baxdaa marka qodada waxaa laga yaabaa inay magacoodii ula baxaan aniga Faarax Jaamac ayaa la yiraahdaa marka magacaada ma ahan magacaada inaad ka dhaafto oo aad u bixisaa magac unique ah ayaa ku qoran website-ka magac unique wuxuu noqon karaa marka magac aysan qof kale kula wadan xataa rabto naanaystaada ka dhig naanays unique haddii aad leedahay haddii aad rabto ka dhig laakiin groupku waa magac lagu aqoonsan karo oo unique ah inuu yeeshaa si looga kala garto applicationka faraha badan oo dadku ay dirsanayaan Soomaali oo kaliya ma ahan dadka applicationka dirsanaya Ethiopian ayaa ku jira Kenyaati ayaa ku jira everybody ayaa ku jira oo dad qaxooti ah ay ka joogaan meel kasta wadamadan Afrikaanka oo dhan marka waa inuu magaca groupkaada uu sidaas noqdaa wagaag su'aasha muhiimka ah oo aan rabo inaan ku weydiiyo cilmi waxa waaye groupkan markii la furaayo waxaa meediyaha aad ka aragnay ama aad ka sheegtay in dadka intersettlementiga maray oo u dhiman un bes in falahay loo qaado ama IRC Africa maray ama immigration systemka maray oo caafimaadka maray oo just u dhiman in falahay loo qaado ayaa loo ogol yahay in la soo qaado taswiijiga koobaad ayay ahayd face to face ka ayay ha dadka waxay leeyihiin ma still ma saas miya oo dadkaas ma sponsor gareyn kartaa mise everybody waa responsible hawaan ka hadlay arrintaas hadda waxay tahay wejiga labaad way isugu jiraan dadkii hore oo caafimaadka ama faladsuga ahaa waa dadka ugu fudud oo wejiga labaad ka faa'iideysan kara sidii hadda aan kuu sheegay maadaama dadkaasi ay horey dowladda waaxda Mareykanka dib u dejinta u qaabilsan ay horey u qaadatay oo Mareykanka ay dib u dejin ka heleen wax kastana ay hore u mareen oo laga yaabo caafimaad iyo falaydkii inuu dhimaya dadkaasi waa dadka ugu fudud oo haddii 5 qof ama ka badan oo Mareykanka joogay u dacwoodaan 3 ilaa 6 bilood lagu soo qaadin karo laakiin dadka cusub ayaaba loogu talagalay wejigan labaad inay ka faa'iideystaan oo qaxooti u diiwaan gashanaa wixii ka horreeyay September 3 sanadkii dhamaaday ee 2023 marka waa ay kala fursad fiican yihiin mooyaane qof kasta oo kaar qaxooti haysta oo xilligaasi ka hor qaxooti ahaa ayaa ka faa'iideysan kara wejiga labaad teeda kale waxaa laga yaabaa maadaama hadda waddanku oo doorashadii ay soo dhowdahay oo ku dhawaad 8-9 bilood ay ka harsan tahay waan ognahay siyaasadda waddanku halka ay marayso inay meel xasaasiya marayso waxaa laga cabsi qabaa
ninkii odaga ahaa ee Trump ahaa inuu soo laabto dad fara badan waxay isweydiinayaan Trump haddii sii soo laabto barnaamijkan ma sii socon doonaa aniga waxay u badan tahay 100% in barnaamijkan uu istaajin doono barnaamijyada istaajin doono ay ka mid yihiin haddii uu Biden soo laabto waa laga yaabaa inuu sii socdo 4 sano oo Biden uu xilkaas hayno xitaa eligibility-ga ama requirement-ga wax laga bedelo oo laga yaabo hadda 2024 kan dadkii kaar qaxooti isku diiwaan geliyay xitaa inay ka faa'iideysan karaan waa haddii uu Biden soo laabto laakiin haddii uu Trump soo laabto waan ognahay Trump sida uu dadka soo galootiga ah ku yahay kuwii hadda wadanka gudihiisa joogay oo dadka darbiga ka soo booday aanu naqaana ayuu maalin kasta u hanjabaya oo u dhaaranaya wuxuu leeyahay waan wada celinaya wuxuu leeyahay kaararka shaqada ayaan ka qaadaya wuxuu leeyahay lottery waan joojinaya wuxuu leeyahay qaxootiga imaanaya waan yareynaya xitaa ardada waxbarashada ku imaanaysa waan yareynaya ayuu leeyahay marka wuu isbedeli karaa systemka haddii Trump uu yimaado oo barnaamijkan iyo barnaamijyo badan waa istaagi karaa laakiin haddii uu Biden soo laabto barnaamijkan sidiisa ayuu usii soconayaa waxaana laga yaabaa inuu wajiyo kale oo badan uu yeesho maadaama hadda maamulkiisa uu bilaabay isla markaana uu hadda fiican yahay wallahi horta taas waa runta mar walba waxay ku xiran tahay xaaladda meeshay marayso iyo waxaan programka dhan waa iska calaf Soomahan adiga anaga tan qaban karno waa dadaali karnaa leh inta dadaalina wixii Ilaahay calaf noo kasanay waa ma gafayno marka programka intaana soo gabagabaynin waxaan rabaa haddii aan rabno ummadeena inay kula soo xiriirto ama bulshadeena sidee baan kula soo xiriiri karnaa xageebaad social media-ga iyo ma noo sheegi kartaa sida ugu fudud oo aan dhihi karno ama adiga xataa aan kugu taageeri karno oo aan dhihi karno maadaama aad noo haysid howl weyn bulshadeena ama dadkeena meel allaala meeshay joogaan horta YouTube-kayga inta badan markaad qaybta home-ka aad ku dhufato social media-ga dhan baa ku qoran waxaana jirta sidoo kale Facebook-gayga iyo Facebook page-ka aan ku leeyahay oo Cilmi Mohamed Waare ah iyo WhatsApp-kayga sidoo kale inay isku xiran yihiin oo in badan dadku inta badan bay halkaas igala soo xiriiraan marka baraha bulshada kullay dhinaca TikTok-ga dadka Mareykanka jooga aad bay igala socdaan waa Cilmi Waare TikTok-kayga marka meelaha la booqdo subscribe-ta iyo follow-da lagu badiyo marka inta ayaan dhahay lahaa waadna ku mahadsantihiin sidaad ila soo xiriirteen registerna waan salaamayaa waxaa jirta gabar leelashay qaadan la yiraahdo oo wariye aan isla ahaan jirnay Rehona Afriga oo register degan wali isma arkin waan wada xiriirnaa waan ismaqalnaa marka dad fara badan oo Soomaaliya ah register degan waa magaalo weyn marna inaad isoo booqdo studio-haydu ku imaado haddii alla yiraahdo haddii fursadu noo soo maxdo waan samayn doonaa oo intaa iyo waxyaabo ka badan aan ka sheekaysana haddii alla yiraahdo insha Allah jazakallahu khair aad iyo aad umahadsantihiin halkaas aad maanta aan waraysi xoog lan la yeelanay waa walaalkan Cilmi Waari suu sheegay la xiriira Facebook page-kiisa YouTube-kiisa WhatsApp-kiisa kulli aan istaageerno annagoo asaasa media jazakallahu khair waa sidaa iyo maalin kale iyo nabadgelyo umahadsantihiin jazakallahu